هذا عشركينا maanta wuxuu ku saabsan yahay cashir hore oo aan qaadanay oo new adis ah oo aan u bedelay insha Allah aynu u bedelay jilmado ama statementiyo oo jilmado fudud ah simple sentences oo kale marka insha Allah dhageysta habon simple English lesson a simple English lesson yes the idea of combination is a very important for this work. The idea of a combination is a very important for this work. Wadahay combination waa isku dar isu geynta fikradda ama isu geynta fikirka ama fikradaha waxay muhiim u yihiin wadahay shaqadan dabcan ra'yiga hadii la isku darsado ama aragti la isu geeyo waxa fududaanaysa shaqada la qabanayo waa garanay wadahay the relationship between you and your children must be accurate be accurate the relationship between you and your children must be accurate waxa la yiri xiriirka ee u dhaxeeya adiga iyo carruurtaada waa inuu noqdaa mid accurate ama sax maxaa laga wadaa xiriirka laga hadlayo waxa weeye hooyada ama aabaha haddii uusan ka warhaynin dhaqanka ilmihiisu ay ku dhaqmayaan iyo wax ay sameynayaan waxay noqonaysaa inuu meel bannaan ku soo dhaco ilmihii ka fasahaadaan macnaha inaad ka warhaysid waxa ay sameynayaan ilmahaagu aad bay noogu badan tahay midaasi maanta arkaysaa hooyo ama aba telephone gad baa la dhigi ama ilmaha waxa inta badan waalidku ku qasbaan inay maanta telephone smartphone u gadaan kadib laakiin waxay ku sameynayaan iyo waxay ka faa'iidayaan midna ma oga waa garanay I can't fulfill your demand I cannot fulfill your demand because it is very hard I cannot fulfill your demand because it is very hard I cannot fulfill ma oofin karo your demand dalabaadkaaga waxaad iga dalbanayso ama iga rabto ma oofin karo sababtoo ah it is a very hard aad ayay igu adag tahay aniga it's very hard to me aad ayay igu adag tahay it's very hard for me aad ayay aniga igu adag tahay waa garanay halkan ay imanayna the government should supply enough food to the people the government dawladdu should supply waa inay u qaybisaa ama ay u geysaa ama ay siisaa enough food to the people dadka cunto ku filan waa inay siisaa dawladdu cunto ku filan waa inay dadka siisaa waa garanay which food do you prefer to eat which food cuntade do you adigu prefer ayaa doorbidaa to eat inaad cunto ama jecesha cuntada jecesha ama doorbidaa inaad cunto what is your budget plan of your education in this year what is your budget plan of your education in this year what is your budget plan maxay tahay qorshahaaga maaliyadeed of your education ee waxbarashadaada ku saabsan in this year sanadkan qorshaha u diyaarsatay waxbarashadaada maxay tahay waa garanay how do people feel the impact of the drought how do people feel the impact of the drought wadahay how do people feel siday u dareemeen ama ay u saameysay how do people feel the impact of the drought saamayntii ay yeelatay siday u dareemeen dadka abaartii sanadkan dhacday waa garanay wuxuu dhahay how do people feel siday ayay dadku u dareemeen the impact saamayntii of the drought ee abaartii dhacday saamaynteedii dadku say u dareemeen dabcan say u dareemeen jawaabteeda lama bixinin to be accurate si aad sax u noqoto you have to examine
your work after completion. To be accurate, you have to examine your work after completion. Wuxuu dhahay to be accurate si ay sax kugu noqoto. You have to examine waa inaad tijaabisaa ama aad qiimaysaa waxaad samaysay. Examine your work shaqadaadii inaad ku samaysa dabagal iyo macnaha hubin after completion markaad dhamayso. So wuxuu dhahay to be accurate si ay sax u noqoto, you have to examine waa inaad dabagal ku samaysaa your work shaqadaada after completion dhammaadkeeda. Xilliga markaad dhamayso shaqadaadii si fiican u hubi inaad dhamaystirtay iyo in kale. Waan garanay. When the country face marka uu wadanku wajaho a shortage of food cunto yari, government dawladdu have to import waa inay soo dhoofiso ay wadamo kale ka soo gataa enough food. Tusaale wadanka abaara ka dhacday, beero fiican kama bixin, xoolihiina waa halaabeen, ganacsigiina reemiga uma inta badan gadan jiray waa halaabay. Dawladdu waa inay wadanka dibadiisa ka soo dhoofiso waxay dadku cuni lahaayeen. So wuxuu dhahay when the country face marka uu wadanku wajahayo a shortage of food cunto la'aan, government dawladdu have to import waa inay soo dhoofisaa enough food cunto ku filan dadka ku filan. Fundamentally basic asal ahaan fundamental haddii la dhaho waa asaasi. Fundamentally asaasi ahaan ama basic ahaan you have to build waa inaad dhistaa. You have to build waa inaad dhistaa your career waxbarashadaada for the next 4 years. 4 sano kugu soo aadan waa inaad dhistaa waxbarashadaada iyo manhajkaaga waxbarasho. So wuxuu dhahay when fundamentally asaasi ahaan you have to build your career for the next 4 years. 4 sano inagu soo aadan waa inaad si fiican u dhistaa waxbarashadaada. As a student arday ahaan you should memorize waa inaad muraajacaysaa. Muraajacayn memorize waa muraajacayn your lesson every day maalin walba. A foolish man ninka doqonkii will not recognize his mistake. A foolish man ninka doqonkii will not recognize ma qiranhayo his mistake. Waana run qofka doqonkii inta badan khaladkiisa ma qirto. Waan garanay. We are going to the market. Suuqa ayaan u jeednaa. To buy si aan u soo gadanno. To buy si aan u soo gadanno. To buy for some foods. Some food. We are going to the market to buy for some foods. Some food. Waxaan u jeednaa suuqa. We are going to the market. Suuqa ayaan u jeednaa. To buy si aan u soo gadanno. For some food. Waxoogaa cuntaa si aan u soo gadanno. Suuqa ayaan u jeednaa. Waa garanay. It is impossible. It is possible baa la yidhi what you are telling me. Halkan wuxuu dhahay it is possible. It is possible what you are telling me. It is possible what you are telling me. Waa macquul gal, waa suuragal waxaad ii sheegaysaa. Inooma sheegin waxa loo sheegay. The effect of coronavirus. The effect by the coronavirus. The effect of a coronavirus has to be isolated. Wuxuu dhahay meeshan the people aan dhahayna the people
affected by the coronavirus has to be isolated. The people affected by the coronavirus have to be isolated. The people affected by the coronavirus have to be isolated. Dadka affected uu saameeyey by the coronavirus have to be isolated. Waa in la karantiil. The people affected by the coronavirus have to be isolated. Dadka uu ku dhacay ama uu saameeyey xanuunka coronavirus waa in la karantiil. Waa qof xanuun ku dhacay meel gaara lagu ilaalinaya. Perhaps waxaa laga yaabaa he may forget inuu iloobay what you told him. Waxaad u sheegtayba inuu iloobay ayaa laga yaabaa. Waa garanay ereyadan waxaa new words horey aanu soo maray sida ka muuqata oo kale ideas waxaan ujeedaa combination oo kaleeto waa relationship halkan oo kale demand iyo kuwa la mid oo badan. Marka insha Allah intaas ayaan ku daynaynaa cashirkeena maanta. aadna waa idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi